Angela Merkel ra'iisul wasaarihii dalka Jarmalka haweeneydii ugu awoodda badneed adduunka ayaa macaasalaamaysay saaxadda siyaasadda 16 sano ayay ra'iisul wasaare ka ahayd dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub. Angela Merkel waa 67 jir, waxay ku dhalatay magaalada Hamburg laakiin waxay ku kortay bariga dalka Jarmalka. Waxay baratay cilmiga chemistry-ga laakiin markii hore waxay rabtay inay noqoto macallin dadka bara luqadda Ruushka iyo fiisigiska. xisbiga Christian Democrats ayaa sanadkii 2000 u doortay hogaamiyaha xisbiga. sanadkii 2005 ayaa markii ugu horeysay loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka. waxay ahayd hogaamiye aad muhiim ugu ah Yurub, waxaana la sheegaa inay ahayd hogaamiye si fudud u maareyn jiray dhibaatooyinka. waxay ahayd siyaasiga ugu awoodda badan midowga Yurub. waxay caan ku ahayd magaca hooyo. muddadii ay hogaaminaysay Jarmalka waxaa Soomaaliya, Mareykanka iyo Faransiiska soo maray min 4 madaxweyne. boqortooyada Ingiriiskana waxaa soo maray 5 ra'iisul wasaare, halka Talyaaniga ay soo mareen 8 ra'iisul wasaare. joornaalka Times Magazine ayaa sanadkii 2015 u aqoonsaday shakhsiga sanadka. sanadkii la soo dhaafana waxay kaalinta koowaad ka gashay liiska haweenka ugu awoodda badan adduunka. maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 26 bisha 9 ee sanadka 2021 ayaa Jarmalka waxaa looga dareerayaa doorashooyin, waxayna dooran doonaan dadka Jarmalku hogaamiye cusub. xisbiga Angela Merkel ee Christian Democrats ayaa rajadiisu aad u liidataa, laakiin xisbiga Social Democrats iyo xisbiga Green Party ayaa loo saadaalinayaa in midkood ku guuleysan doono hoggaanka dalka Jarmalka.